waxaan ku suganahay gudaha safaaradda Soomaalida ee dalka Ciraaq ee magaalada Baghdad. halkan waa halka ay ka howlgali doonto safaaradda laga bilaabo maalinta beri oo Khamiis ah oo ay ku beegan tahay bisha Oktoobar 15keeda. waxaa munaasabada ka soo qayb gali doona dawladda federaalka Soomaaliya xubno kamid ah sida wasiirka arrimaha dibadda iyo waliba wasiirka arrimaha dibadda dalkan Ciraaq iyo xubno kale oo ka tirsan labada dawladood. haddaba waxa aan la kulmay qaar kamid ah shaqaalaha safaaradda Soomaalida waxana aan weydiiyay faa'iidada uu leedahay in mar kale dib loo cusboonaysiiyo xiriirkii labada dal. labada dal inay cilaaqaad yeeshaan oo safaaradda dib loo furo faa'iido weyn ayaa ugu jirta shacabka Soomaaliyeed. sababtoo ah wadanka Ciraaq waa wadan kamid ah wadamada batroolka dhoofiya oo ku yaala wadamada khaliijka bariga dhexe kamidana wadamada ugu muhiimsan wuxuuna yani khibrad aad iyo aad u dheer yahay inta arrimaha shidaalka oo haddii ay Soomaaliya u baahan tahay in ay khayraadkeeda ay la soo baxdo ay kala tashan karto ama ay wax kala qabsan karto. jaakadan la'aanteedana meelaha qaar ma ku suurtagelayso inaad aado. Baghdad waxa ay ka mid tahay magaalooyinka ugu ammaanka daran caalamka. halkan aan ku sugannahay waxaa la yiraahdaa qadka cagaaran ama green zone waxaana degan hay'adaha gargaarka iyo waliba safaaradaha caalamka ee laakiin kaga howlgala dalkan Ciraaq. safaaradda Soomaalidu waxa ay ku taalaa goob ammaan ah oo amnigeeda si aad ah loo sugay. Cabdiraxmaan Maxamed Cartan waxa uu ka mid yahay shaqaalaha Soomaalida safaaradda waxaana halkan uu yimid sanadii 1988 dagaalkii Iiraan oo dabayaqa ah kii Ciraaq iyo Kuwait iyo waliba waxa uu ku sugnaa halkan dagaalkii lagu riday Saddam Hussein 2003 meelna ugama qaxin dalkan Ciraaq isaga iyo caruurtiisa iyo waliba ooradiisa waxa ay ku nool yihiin bartamaha magaalada Baghdad. waxa aan weydiiyay bal inuu sawir cad iga siiyo ammaanka halkan iyo sida ay ugu nool yihiin. annaga Soomaalidu dadka guud ahaan waxaan wax la qabnaa hadday tahay mid shaqo helid hadday tahay mid amni haddii ay tahay mid dhaqaale dadka guud ahaan waxay qabaan baan la qabnaa. annaga haddaanu nahay Soomaali horta dad baa nagaga dhinteen ilaa 4 qof ba dagaalada nagaga dhimatay oo qaar si toos ah loo dilay qaarna ay ku dhinteen qaraxyo iska dhacay. noloshuna aad iyo aad bay noo saameysay haddaanu nahay jaaliyadda Soomaaliyeed oo halkan ku nool. qof walba halkan jooga qaarkood waxa ay wataan jaakadaha xabadda la isaga ilaaliyo taas oo ay mar kasta muhiim tahay in qofka uu wato. gawaarida inta badan diblomaasiyiinta iyo dadka kale la saaraa ayaa waxay yihiin kuwa aan xabadda karin ama loo sameeyey nooc loo yaqaan bullet proof. waxa sidoo kale aan la yaabay oo aan arkay eeyaha wax baara xitaa qaarkood waxa ay wataan jaakada bullet proofka. Ibrahim Cumar Baafe.